Bismillahirrahmanirrahim. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Halkan waa channelka aan YouTube-ka aynu ku leenahay ee National TV. Haddii aad hore inoola joogin nagu soo biir daawade. Intaasina waa codsiye markana ku soo dhawaada qodobada ugu doorkaroon ee warkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah. Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Jowhar. qasaaraha qaraxan inta uu gaarsiisan yahay ayaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkayaga. Daacista ka dagaalanta Soomaaliya oo war ka soo saartay isbedelka hoggaanka kooxdaasi Daacish iyana waan idiin soo baahinaya. Wasiir Al-Cadaalah oo gacan ka taagay loolanka kursiga tiriskiisu yahay hoob 69 ee odowa kula loolamayay. xoga sir ah ayaa soo shacbaxaya balse barnaamij wareedkayaga ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. iyo maamul goboleedyadii ugu horeeyay oo dhaqan galiyay jadwalka doorashooyinka. qodobadii nagu soo kordho ayaad barnaamijkan inta aan ku guda jirno ku daawan doontaan. balse ugu horeyn waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirtid oo channelka subscribe noo saar, muuqaalkana like garee oo share garee si uu u gaaro saaxiibo fara badan. si aan u helno saaxiib sidaado oo kale u qalbi wanaagsan. mahadsanid. qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoogu dhaaf waa inoo muhiim. markana ku soo dhawaada qodobadii aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan. inuu ku bilownaa daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudano. waxaa soo shacbaxaya faahfaahinta la xiriirta qarax miino oo ay dad ay u dhinteen oo goordhow ka dhacay duleedka magaalada Jowhar. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxan ay ku dhinteen 2 ruux oo saarnaa mooto dhugdhugleyda loo yaqaano, kuwaasi oo ku wajahnaa ama ku sii jeeday magaalada Jowhar oo ka timid deegaanka Biyacade. goobta uu qaraxan ka dhacay oo ah meel u dhaxaysa magaalada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere ayaa bishii aynu ka soo gudubnay waxa ay miino kula qaraxday mooto bajaaj, waxaana ku dhintay dhammaan 4 ruux oo saarneed mootadaasi. xogta qaraxan waxyaabihii ku soo kordha inta aan ku guda jirno barnaamij wareedkan waan idinkugu soo baahin doonaa, ama waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga haddii rabweyne laga helo. markana daacista ka dagaalanta Soomaaliya ayaa war ka soo saartay isbedelka hoggaanka kooxdani Daacish. kooxda Daacish gaar ahaan faraceeda Soomaaliya ayaa ka hadashay isbedelka ballaaran ee ku yimid hoggaanka guud ee kooxdani. bayaan ka soo baxay daacista Soomaaliya ka dagaalanta ayaa waxaa lagu sheegay in ay daacad u noqon doonaan hogaamiyaha cusub oo lagu magacaabo Sheekh Abu Al-Xasan Al-Haashimi. sidoo kale waxa ay kooxdani wacad ku mareen in ay laba jibaari doonaan howlgaladeeda xilli la isku diyaarinayo bisha barakeysan ee Ramadaan. fariintan oo ahayd mid gaaban ayaa waxaa sidoo kale ka soo muuqday dagaalyahano ka tirsan Daacish iyo horjoogahooda oo lagu soo bandhigay kooxda Twitter-ka. kooxdani Daacish ayaa dhawaan Sheekh Abu Al-Xasan Al-Haashimi u magacaawday in uu noqdo hogaamiyahooda cusub, waxa ayna xaqiijisay geerida hogaamiyaheedii hore ee Abu Ibrahim Al-Qurayshi, kaasi oo lagu dilay weerar ay ciidamada Mareykanka ka fuliyeen gudaha dalka Syria. dagaalyahanada Daacish ee howlgalada Soomaaliya ayaa ku xoogan dhulka buuraleyda ee gobolka Bari oo ah halka ay ka soo duubtay fariintan loo diray hogaamiyaha cusub. inta badan dagaalyahanada kooxdani Daacish ayaa weeraro ka fuliya qaybo ka mid ah dalka, gaar ahaan magaalooyinka ay ka mid tahay Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya. isla barnaamij wareedkayaga ayaa daawanaysan. markana guddiga Koonfur Galbeed ayaa soo saaray jadwalka doorashada 7 kursi ee u dambeysay guud ahaan xubnaha golaha shacabka, gaar ahaan kuwa deegaan doorashadooda ay tahay Baydhabo iyo Baraabe. guddiga ayaa sheegay in isla maanta la shaacinayo guddiyada soo xulaya ergada 7 kursi ee kala ah hoob 204
197 179 172 164 181 iyo hoob 47. qoraalka ayaa sidoo kale lagu shaaciyay in diiwaangelinta la bilaabayo 14 bishan kadibna maalinta ee 15 Maaj la qaban doono doorashada xubnahaasi. tani ayaa ka dhigan in Koonfur Galbeed ay noqotay maamul goboleedyada ugu horeeya ee dhaqan geliya jadwalkii u dambeeyay ee doorashooyinka dalka oo ah in gabi ahaanba doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya la soo gabagabeeyo 15 bishan Maaj ee sanadan aynu ku guda jirno. ilaa iyo hadda waxaa socda agajiid ku aadan doorashooyinka, waxaana ugu daran muranna ka taagan yahay doorashada ka dhacaysa magaalada Garbaharey. horey waxaa magaalada Muqdisho loogu soo gabagabeeyay doorashooyinka kuraasta gobolada waqooyi iyo kuwa beelaha Banaadiriga, waxaana ku soo xigay Koonfur Galbeed. doorashadan oo qaadatay muddo ka badan 1 sano ayaa hadda maraysa meel wanaagsan iyadoo la gudagalayo doorashooyinka guddoonka labada aqal iyo midda madaxweynaha. isla wararkayaga ayaa daawanaysaani markan haddii aynu eegnana loolankii ka dhaxeeyay Alcadaala iyo Odawa. wasiirka ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala ayaa gacan ka taagay loolankii uu ugu jiro kursiga xildhibaan ee hoob 69 isaga oo qirtay in looga adkaaday una hambalyeeyay Cabdiraxmaan Odawa oo hadda kursigan ku fadhiya mar kalena u sharaxnaa. inkastoo kursigan doorashadiisa aysan weli dhicin, haddana Alcadaala ayaa garwaaqsaday in rajada uu ku hanan kara ay tahay 0, taasi oo keentay in uu ka haro tartankan. Alcadaala ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook ku yiri, waxaan halkan ugu hambalyeynaya adeerkay Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa oo noqonaya xildhibaanka imatali doona 4 sano ee soo socota insha Allah. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan saaxiibadii muddada ka badan 2 sano igala shaqeynaya ololahayga. waxaan kale oo u mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasheeda kala duwan oo aan leeyahay wad mahadsantihiin. halganku wuu sii soconayaa insha Allah. dhammaanteen waan guuleysanay. gacmaha ayaan isqabanaynaa, hore ayaan u soconaynaa insha Allah, ayuu yiri wasiir Alcadaala. sidoo kale xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa ayaa ugu mahadceliyay Alcadaala in uu tartanka ugu haro. waxaan u mahadcelinayaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta wiilkayga Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Alcadaala sida sharafta iyo xurmada leh oo uu ugu tanaasulay. waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan, anoo ballan qaadaya in aan gacmaha isqabano si aan ugu adeegno bulshadeena. caawa waan wada guuleysanay adeer, alla ayaa mahad leh, ayuu yiri Odawa. intaasi kadib ayaa Alcadaala waxa uu hoygiisa kaalkacyo ku booqday Odawa, halkaas oo ay isugu niyad furnaadeen. go'aanka Alcadaala ayaa yimid saacado kadib markii guddiga doorashada Galmudug ay soo saareen liiska odayaasha soo xulaya ergooyinka 3 kursi ee doorashadooda ka dhacaysa magaalada Kaalkacyo oo ka mid yahay kursiga hoob 69. liiska odayaasha la soo saaray ayaa u muuqday in uu dhan u riday loolankii Odawa iyo Alcadaala, iyadoo oo ay National TV ay fahansan tahay in odayaasha loo xiray ama loo xil saaray ergada xulista ay taageersan yihiin Cabdiraxmaan Odawa. sida aan xoga ku helayno, madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa cadaadis xoogan kala kulmay ganacsatada iyo odayaasha beesha kursigan leh oo la sheegay in ay si aad ah ugu doonayeen in dib loogu doorto Odawa, taasi oo keentay in odayaal taageersan Odawa loo xil saaro soo xulista ergada. waxaa hadda la filayaa in odayaashaasi ay magacaabaan erga taageersan Odawa, taasi oo meesha ka saaraysa rajada Alcadaala. inkastoo ay odayaashu ay yihiin kuwa saxda ah, haddana waxaa hore u jiray dadaalo ay xafiiska ra'iisul wasaaraha ay ku doonayeen in odayaal raacsan Alcadaala la soo magacaabo si ay taasi ugu caawiso dhanka ergada, balse lagu guuldareystay. ugu dambeyntii aad baan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan.
haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe inoo saar, muuqaalkana like garee oo share garee si uu u gaaro saaxiib sidaada oo kale u niyad wanaagsan. mahadsanid. balse daawada inta laga gaarayo muuqaalkan kiisa xiga, Rabbi idinkii nabadgeliyo.